filimkan waxa uu ku bilaabanayaa nin lagu magacaabo Diego oo la dagaalamaya koox burcad ah dusha sare ee dhisme. Inkasta oo uu keligii yahay, si fudud ayuu u garaacayaa maxaa yeelay hore ayuu ugu tirsanaa jiray burcadda. Waxaan xasuusinayaa inay YouTube-ka subscribe dhaadin muuqaalkan aad like saarto. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. 7 sano kadib, Diego waxa uu ka fadhiistay burcadnimadii, waxa uuna ka qalin jabiyay kulliyadda waxbarashada. Hadda waxa uu bilaabayaa nolol cusub. Waxa uu raadinayaa meel uu dego. Waxa uuna helayaa guri kiradiisu ay jaban tahay, laakiin leh taariikh cabsi leh. Qof ayaa hore ugu dhintay, wuxuuna go'aansaday inuu halkaas sii joogo ilaa uu shaqo ka helayo. Dhanka kale, ardayda dugsiga sare ayaa dirdilaysa macallinkooda jimicsiga, Mr. Back. Waxa uu go'aansanayaa inuu shaqada ka tago. Maamulaha dugsiga ayaa markaas ku dhawaaqayo in arday kasta oo dagaal gala ama jirdila macallin la ciiri doono. Waxa uuna sidoo kale codsanayaa inuu helo macallin cusub oo bedelaya Mr. Back, balse way adag tahay sababtoo ah iskuulkan sumcad xun ayuu leeyahay. Macallin ayaa wacaya Diego si uu u buuxiyo booska macallinka baxay. Diego oo shaqo u baahan ayaa si dhaqso leh u aqbalaya. Maalintii xigtay waxa uu iskuulka ku tagayaa mooto yar, wuxuuna arkayaa arday sigaar cabaysa. Wuu istaagaa wuuna ka dhigayaa, balse ardaydu waxa ay u muujinayaan hanjabaad. Laakiin Diego weli xirfadiisa dagaal ayuu leeyahay, si sahlan ayuuna u garaacayaa dhammaantood. Isagoo iskuulka tagaya, waxa uuna la kulmayaa maamulaha iyo macallimiinta, kuwaas oo uga digayo khatarta ardayda. Macallimad la yiraahdo Mrs. Yura ayaa geysa fasalkiisa. Markii uu gudaha galo, ardaydu way iska indhatirayaan. Buugga ayuu ku dhufanayaa miiska si uu u soo jeesiyo ardayda. Qaar ka mid ah ardaydii uu sigaarka ku qabtay ayaa fasalka jooga, wayna cabsadaan. Diego waxa uu ku qorayaa magaciisa sabuuradda, balse ardaydu way qoslayaan, isaguna ma xanaaqin. Markii fasalku dhamaado, gabar lagu magacaabo Jihan ayaa ardayda weydiinaysa qaab loo sameyn karo lacag badan si degdeg ah, wax kastana ay diyaar u tahay si ay lacag u hesho. Wiilashii Diego hore u garaacay, Kan iyo Bain, waxay maqlayaan hadalka Jihan, waxayna u soo bandhigaan shaqo abaalmarin weyn leh. Iyadoo aan waqti badan ka fikirin, way aqbashay. Inkastoo saaxiibadeed uga digeen, habeenkaas Diego asigoo mooto wato ayuu ku soo dhacayaa Jihan. Markii uu caawin maago, Kan iyo Bain ayaa imaanaya, waxayna bilaabayaan inay duubaan si ay hadhowtu ugu eedeeyaan inuu gabarta dhibaateynayay. Muuqaalkan ay rakaata ahaan u haystaan. Arda kale oo lagu magacaabo Nam ayaa imaanaya isigoo baaskiil wata. Nam waxa uu ka qaadayaa taleefanka isigoo tirtiraya fiidiyowga. Diego waxa uu maleynayaa inuu hogaamiye u yahay burcadda, balse Nam uu inkirayaa arrintaas. Maalintii xigtay, Nam waxa uu iskuulka la yimaadaa saaxiibtii Rin aad ayay u faraxsaneed. Kadib, Kan iyo Bain iyo madaxooda Dihan ayaa si xanaaq leh u eegaya. Diego waxa uu doonayaa inuu wax ka ogaado Nam, wuxuuna weydiinayaa macallimiinta. Wuxuuna ogaanayaa in Nam hore u ahaa madaxii kooxda ardayda burcadda ah markii uu dhiganayo dugsiga dhexe, balse isbedelay markii uu bilaabay dugsiga sare, gaar ahaan kadib markii uu bartay Rin. Fasalka dhexdiisa, Rin waxa ay ku dhawaaqaysaa inay heshiis la saxiixatay shirkad muusig ah ayna dhowaan noqon doonto fanaan. Fasalku wuu ku farxayaa, laakiin Dihan iyo kooxdiisu way ku jeesjeesayaan. Mid ka mid ah burcadda ayaa riixaya Rin, markaas Nam wuu xanaaqayaa wuuna la dagaalamayaa. Diego ayaana soo dhexgalaya si uu u joojiyo dagaalka. Maamulaha waxa uu go'aansanayaa inuu ceeriyo Nam, laakiin macallinka Diego waxa uu ku baryayaa maamulaha in fursad kale uu siiyo. Wuxuuna jilbaha u dhiganayaa dhulka maamulaha, wuxuuna muujinayaa si uu u danaynayo ardayda. Maamuluhu wuu aqbalayaa. Macallimiinta kale ay ka mid tahay Mrs. Yura way la yaabayaan arrintan. Markii ay Diego iyo Mrs. Yura ay wada baxayaan, waxay arkayaan Jihan oo shaqo xun lagu cadaadinayo. Diego wuu dhexgalayaa, waxa uuna la dagaalamayaa ninkii shaqada lahaa, taas oo sii kordhisay kalsoonida Mrs. Yura. Dhanka kale, Jihan iyo kooxdiisu waxa ay la kulmayaan madaxa burcadda, halkaas ay joogaan koox kale oo hogaaminaya John. Sidoo kale, arday kale oo ka mid ah iskuulka. Madaxa burcadda waxa uu doonayaa hal koox oo kaliya inay maamusho iskuulka. Wuxuu amrayaa in labada kooxood dagaalamaan si mid u guuleysto. John waxa uu isku dayayaa inuu Nam ku qanciyo dagaalka, balse Nam wuu diidayaa maxaa yeelay ma doonayo inuu dagaalka ku noqdo. Diego asna waxa uu wicitaanka helayaa saaxiibkiisii hore oo doonaya inuu ka qayb noqdo burcad. Diegona weydiisanaya caawimaad, balse Diego wuu diidayaa inuu caawiyo sababtoo ah hadda wuu iska dhaafay inuu dagaal iyo burcad ka qayb qaato. Iskuul ayuuna ka yahay macallin. Iskoolka dhexdiisa, macallin ayaa ogaanaya Diego inuu kamid ahaa jiray burcad, waxaana lagu magacaabaa Mr. Lee. Waxa uu sheegayaa macallimiinta kale in Diego saaxiib la yahay Nam, Diegona uu ahaa jiray burcad. Macallimiinta ay ka mid tahay Mrs. Yura way ka fogaanayaan arrintaas. Mr. Lee waxa uu arrintaas u sameynaya maxaa yeelay waxa uu ka xanaaqsan yahay xiriirka uu la leeyahay Mrs. Yura oo isagu jecel yahay. John weli kama harin Nam si uu u qanciyo dagaalka. Waxa uuna ugu hanjabayaa inuu baahi doono sawirro Rin oo cabaysa sigaar, taasoo keenaysa in shirkadda muusiga ay la gashay ay ka bixi doonto heshiiska. Nam oo ka baqaya in Rin heshiiskeedu burburo, wuu aqbalayaa inuu la dagaalamo kooxda John. Aabaha Diego wuu xanaaqayaa markii uu maqlay in wiilkiisa weli lala xiriirinayo arrimo dagaal, laakiin Diego waxa uu sheegayaa runta. Waxa uuna u sharaxayaa inuusan dagaalamayn oo uu caawinayo ardaydiisa. Maalintii dagaalka ayaana la gaarayaa, waxa uuna ka dhacayaa dagaalku dhismaha hoose si aysan dadku u arkin. Kooxda Dihan way la yaabayaan markii ay arkaan Nam oo la safan John. Macallimiintu waxa ay ogaadeen dagaalka, waxayna u soo degdegayaan goobta. Diego ayaa imaanaya goobta dagaalka isagoo joojinaya dagaalka, balse ardaydu ma tixgelinayaan wayna weerarayaan. Wuuna isdifaacayaa. Bilowgiisii waxa uu la tacaalayaa dagaalka, balse markii dambe wuu daalayaa.
markii arday ka mid ah uu dili rabo Nam ayaa soo dhex galaya oo la dagaalamaya kooxda Dihan wuxuuna garab siinayaa Diego waxayna si wadajir ah u joojinayaan dagaalka markii dagaalku dhamaado macallimiintu waxay arkayaan Diego oo la hadlaya ardayda oona ka waaninaya dagaalka laakiin maamulaha iskuulka waxa uu eedo dusha ka saaraya Diego shaqada ayuuna ka eryayaa markaan balse ardaydu hadda si weyn ayay u qadarinayaan Diego wayna murugoodaan waxayna u soo baxayaan si ay u sagootiyaan markii uu iskuulka ka tagayo qalbigiisa wuu murugaysan yahay waxa uuna booqdaa aabihii laakiin markaan aabihii waa ku faraxsan yahay sababtoo ah ardayda waxa uu baray in aan dagaalku fiicnayn xitaa haddii uu shaqadiisa ku waayay filimku waxa uu ku dhamaanayaa Diego iyo aabihii oo daawanaya dhismo cusub ay hadda dhiseen kaasoo ah iskuul hadda ay ku leeyihiin oo laga dhisay dhulka qoyskooda